saailka toobaad wuxuuna leeyahay oo weydiinayaa wuxuu yidhi waxaan kala tagnay oo qof dumara waxaan kala tagnay carruurtayda aabbahood 3 dalqadoodna waa naga dhammaadeen waxba iskuma kaaya harin kamana maarmo haddaba inaan nin kala guursado anuu niyadda ninkii hore ku haya markii aan isguursanay kadibna ifur aan idhaahdo si aan ninkii hore ugu noqdo iyo ugu bannaanaato diintu maxay ka qabtaa ma bannaan tahay iyo ma asaxayaa baan rabaa inaan kala qaado munaasabaddan haddii arrintaasi ninka guursanaya talaaqu hadhow ninku gacantiisa ku jiraa waxa heshiiska uu gelayo iyo ku talagelka ama ku talagelkiisu oo saamaynta xukunka dalaaq nikaax ma asaxaya mise ma asaxaya leeyahayna waa ninka gabadhu niyadda ay ku haysay haddii ninka heshiisay la wadaagtay aanay ahayn niyaddeedaasi diidi maysa nikaaxu inuu asaxo naska xadiidkuna ninku markuu arrintaa waduu ku soo arooray lacana allahu almuxallila waalmuxallala lah kan wax xalaalaynaya kan loo xalaalaynaya oo heshiis rag dhex maraya hadhowna sidaa inuu u fura laga doonayo tan dumarku niyadda qalbigeeda ku jirta xukun kaley leedahay laakiin sixada nikaaxu kuma xidhna iyada guurka saas inay guursato ma u bannaan tahay way dambaabi sababtoo ninka guursanaya ee wakti iyo maal iyo kharash gelinayaay niyadaa saas iyada ku jirta niyatul khiyaana wey waa untii laga yidhi culimmadu ka dhaheen ninka naagta guursanaya biniyati talaaq isagoo doonaya bil iyo waxoogay uu joogo meesha inuu ku meel gaadho markay dantiisu magaalada uga dhammaatana uu isaga dhaqaaqo iyaduna aynan ogeyn athima weeye khiyaano weeye oon mucaamalaadka iyo wax isweydaarsiga iyo xuquuq wadaagga dadka dhex mara isagoo labada midkood qalbiga iyo uurkiisa ay ku jirto nooc khiyaano iyo musuq maasuqa ay ku jiraan taasi daahirka sixada haddii sharcigii la waafajiyey ma diido laakiin qofkaa niyada xun iyo khiyaanada qalbiga ku haya ayaa ku dambaaba qasadkaa xun ee uu leeyahay lagabana yaaba lacalla markay ninkan dambe guursataay inuu ugaba fiicnaada kii hore